الحمد لله markana waxaan soo dhaweynayaa qofka ku xigo waa Sharmaarke Xuseen Cismaan soo dhaw Sharmaarke Sharmaarke wuxuu ka socdaa Allah u naxariisto marxuumad kambaniga ka shaqeynaysa Faaduma Iidow oo qof aad iyo aad maaragtay aan jecelahay Ilaahay u naxariisto ayaa dhashay marka $15,000 ayay ku guuleystay marxuumadu Ilaahay u naxariisto waxaana gudoomaya wiilkeeda Sharmaarke Xuseen Cismaan ayaa gudoomaya $15,000 Sharmaarke aad baan idinku hambalyeynaa qoyskiina markana waxaan soo dhaweynayaa dadka maanta ay ku gudoomayay abaalmarintooda gawaarida xafiiska siinay qofka ugu dambeeyo sidaan hore u sheegay xafiisyo kala duwan iyo goobo kala duwan ay maanta abaalmarintan ka socotaa qofka ugu dambeeya qaybta siinay lacagta ku qaadanayo oo soo dhaweynayo waa Nuur Maxamed Axmed soo dhawow Nuur Nuur Maxamed Axmed sidaas oo kale Nuur wuxuu galay darajada Bronze Lion Distributor loo yaqaano wuxuuna ku guuleystay $15,000 oo abaalmarinta gawaarida ah Nuur aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya Nuur alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iskale maantay waxaa xagga noogu soo gabagaboobay abaalmarinta qaybta Sinai Kameriga Tianis xarumo kala duwan ayuu magaalada Muqdisho ku leeyahay xarunta Sinai ayaan maantay ku bixineynay abaalmarinta gawaarida iyadoo xarumaha kalena ay ka socotay anigoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadka ku guuleystay abaalmarinta gawaarida kuwaasoo meelo kala duwan joogo waxaan leeyahay hambalyo waxaad qabateen hawl wanaagsan waxaadna ku guuleysteen abaalmarino qaali ah shaqadiina xagga ka sii labanlaaba ilaahayna aynu ku guuleeyo sidaas oo kale bulshada ay daawanayso waxaan leeyahay tani waa fursad muujinaysa inuu qof kasta guuleysan karo waxaana rajaynaa insha Allah dawla admo inaad dhammaantiin walaalihiina maanta meesha ka soo muuqdeen aad ka soo muuqan kartiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin magacaygu waa Xuseen Maxamed Geedi shirkadani waxaan kaga jiraa darajada 8aad star rank 8 alxamdulillah waan dhawahay sax weeye waxaan ka mid ahaa dadka maanta gudoomiyay abaalmarinta gaariga shirkadda waxaan ku soo biiray 2017 bisha 6aad ayaan ku soo biiray alxamdulillah horumarna waan ka sameeyay waa 2 sano iyo 2 bilood ayay hadda ii tahay waqtiga hadda la joogo waa dareemi kartaa waqti aad u yar oo gaaban weeye shaqooyin fara badan hore usoo qabtayna waqtiga ka dheer aan qabtay ayaanan ii suurtagelin haddaan shakhsiyan kula wadaago Tianis ka hor nolosheeda waxa ahayd anigu waxaan ahaa journalist ama suxufi waxaan ka soo shaqeynayay idaacadaha laga soo bilaabo 2000 ilaa 2006 waxaan ahaa wariye barnaamij soo saare agaasime radio Banaadir Muqdisho Soomaaliya sidoo kale waxaan ahaa madaxa marketingka shirkadda Samaphone waagii Samaphone usmed 2005 ilaa 2006 kadibna waxaan ku fikiray bal in Soomaaliya meel ka duwan aan dhaqaale ka doono waqtigaasi anigu jaabkayga lacag kuma jirin laakiin aqoon baan lahaa waxaan sameeyay xiriir dibadda ah waxaan helay casuumaad aniga iyo 5 qofood halkaas iga soo baxay ticketkii habeen 6 saac ayaan ka degay garoonka Johannesburg South Africa tira 4 jeer ayaan ganacsi ka dhisay South Africa sida dadka Soomaalida og yihiinba South Africa waxa ka jira jinsi nacayb ama faquuq dadka kale ee South Africaanka ahayn qaasatan dadka Afrikaanka ah qaasatan Soomaalida tira 4 jeer ayaan dukaaman aan sameeyay oo aan ka soo bilaabay eber oo aan xoogay ku bilaabay ayaa iga baabacay marka 2015 ayay markii ugu horeysay oo Soomaaliya dib ugu soo noqday alxamdulillah Soomaaliya markaan imaaday waan guursaday xaas ayaan leeyahay 2 caruur ah hadda wareegga labaad soo noqodkii labaad intaan soo noqon kor ayaa xaaskayga shirkadda ku soo biirtay kolkay ku soo biirtay ay ugu soo wargelisay inuu jiro ganacsi noocan ah muddo 8 bilood ah ayaan runtii xaaskayga ka dambeeyay 2016 bisha 10aad ay ku soo biirtay xilligaasna research ayaan sameynayay waan baarid fara badan ku sameynayay ganacsiga noocan inuu yahay ganacsi sax ah ganacsi scam ah inay tahay wax qiyaali ah iyo wax dhab ah markii dambe waxaan ogaaday iyadoo naftirkeeda markii $500 oo gaaraya bishii ay u soo dhacday ayaa waxaan ogaaday ganacsigan inuu yahay ganacsi dhaqaale fiican leh ganacsi nolosha bedelaya
go-aan baan u qaatay anoo South Africa jira ayaan shirkadda kaga soo biiray noloshayda Tianis aad bay isu bedeshay maxaa yeelay marka hore waxaan ahaa qof sii socda oo soo socda oo mar walba inuu safro ah hadda wadankaygaan joogaa xaaskaygaan la joogaa farxad la qaadanaya caruurtaydan tarbiyeynaya kameriga markaan imaaday waxaa la dhahay riyooyinkaaga bal noo sheeg 12 riyo ayaan lahaa 12ka riyo 2 sano gudahood 5 riyo ayaa ka rumooday marka 7 kale ayaa ii sii dhiman marka dreamskaygu ahaa riyadeedu ahaa gaarigii aan istaahilay aan ku socon lahay weeye lacagtani waana soo gadayaa maanta ayaan soo gadayaa hadduu alla yidhaahdo asxaabta iyo deriska iyo qaraabadana maaragtay insha allah way ka faa'iidaysan doonaan يعني مقعي وسهرة عبد الله محمد كمبريغا waxaan ku soo biiray 2016 bisha 10aad 25 waxaan ka tirsanahay muddo 3 sano ayaan ka tirsanahay sidoo kale waxaan uga jiraa darajada Bros Lion Distributor كمبريغا xilligan ku soo biiray amba intaan ku soo biirin koor Fortianis waxa ahaa qof in badan soo shaqeynaysa haday tahay Sacuudi Carabiya booyaasnimo amba qadaaminimo haday tahay Ceylon amba qurxinta dumarka alxamdulillah maalmaha kamida ayaa kambaniga lagu soo casuumay amba informationkii amba warbixintii la iiga siiyay markii la iiga siiyay waxaan ka